waalidiinta waxaan kula talinaynaa carruurtooda inay marka hore ku horeysiyaan qur'aanka kariimka ah. annagu tijaabo aanu qaaday 27 arday oo xufaada qur'aanka soo soo xafaday laakiin aan weligood iskuul dhigan ayaanu macallin u qabanay waliba hal macallin baan u qabanay macallinkaasi maalinta khamiista u yimaada wuxuu u dhigaa maadooyinka iskuulka labada gelin buu yimaadaa xisaabta iyo sayniska iyo Soomaaliga iyo Ingiriiska iyo socialka intaas u dhigaa maalin walba khamiis yimaada 120 maalmood khamiisad markuu macallinkaas imanayay ardaydii waxay la fadhiisteen imtixaanka eedka saddex arday baa C ka keenay oo darajaadkooda 70 gaareen intii kale oo ka sareeyeen 80 iyo wax ka sareeyo ay ku baaseen 7 arday 4 arday kamid ah ayaa 80 ka sareeyay oo B ka sareeyay B iyo wax ka sareeyay aha saddex qura ka keenay C taas waxay cadeynaysaa in ilmaha yar markuu xaafid noqdo in awoodiisa waxbarashadu ay aad iyo aad kor ugu kacayso teeda kale ana carruurteena xalka naga saaran waxa weeyaan inta yar yihiin inaan diintooda u ilaalino oo diintooda barno nasiib darro waxa ah nin weyn oo jaamacad ka soo baxay oo aan garanayn weysadii garanayn salaadii saxayn qur'aankii garanayn waa runtii wax aad looga naxo weeyaan ama ilmaha marka diinta lagu horeysiiyo qur'aankii la baro tacaaliintii diinta loo horeysiiyo waxa weeyaan halka waxa ka soo baxaya ilma ilaahay yaqaana oo xuquuqdii waalidka yaqaana oo maartay baariya waalidkii baari ah oo maartay dalka iyo dadkii diinta anfacaya ka soo baxaya waa ogtihiina manaahijteena tarbiyadu way ku yartahay ardaygu wuxuu qaataa weygii ilaa 3 xisadood 2 xisadood baa tarbiye ka ah 2 xisadood maxay ardayga gaarsiinaysaa maxay ka taraysaa diintiisii ma quraankii buu ku bartaa ma xadiis buu ku bartaa ma fiqh buu ku bartaa ma aqoontu ku bartaa muxuu ku barnaa bal ii sheega halka gawadfal baa ka taagan manaahijta waxbarashada ee dalkeena oo runtii aad iyo aad maartay ardaygii diintiisii iyo dhaqankiisii maartay runtii gacan bidixeen xool ku sameeyay muwaadan lala yaacaya maartay saacadaha badan la siinayo ilmaha wax laga inay wax ka anficin baa laga yaabaa noloshiisa wax weyn aan ku kordhin sayniska yar loo dhigo ilmaha ilaa 8 muxuu kordhinayaa saynisyahan ma noqonayo gawaari nooma sameynayo laakiin haddii diintiisii la baro oo ilmaha waxa way salaadiisii iyo maartay wuxuu diintiisa ugu baahnaa iyo quraankiisii iyo xadiistii wax laga baro wuxuu noqonayaa qof wanaagsan oo saalix u noqonaya qof ummadda anfacu noqonaya marka yaan laga eegin uun maadooyinka la dhigaye waa in la eegaa ilmahan sanadaha hore wuxuu nooga in la tarbiyeeyo u baahan tarbiyadiisa waa in la dhisaa ilmahan waa inuu noqdo ilmo saalixa oo ummadda anfaca oo turaalo leh haddaan la helin maartay ilmo saalix oo muslix oo wanaagsan haddaan la helin waxa weeyaan waxa la helayaa ilmo nooc la oran jiray faaycale ama kuwan hadda ay koonfureedku yiraahaan ciyaal weerarayaan ama kuwan mobilada boobaya ee foodeerayaasha ah marka jazaakumullahu khayr waalidka waxaan aad iyo aad u adkeenayaa carruurtiina diinta xil baa idinka saaran inaan ku tarbiyeysaan carruurtiina diinta oo waqti badan aan siisaan inay diintooda ku bartaan oo ilmahan xajiseen ka daysaan oo gelinkii dahabiga ahaa ilmuhu wax badan lahaa iskuul baa kula soo cararaysaan aan waxba ka keenin sanadaha hore wuxuu ka keenay ilmo uula iyo koowaad iyo 2 3 afraad wax laga ma keeno marka 4 sano ugu horeysa in loo daayo ilmaha quraankiisa inuu barto quraanka inuu xafid laana sanadaha xifdiga qaybta xifdiga ah ayaa aad u xoog badan marka in laga faa'iideysto ilmuhu waxa weey marba meeshu maray laga faa'iideystay sanadaha
maartay in xifdigiisa xoog la saaro 6 sano ugu horeysan noloshiisa marka laga yimaado 6 ku xigta waa 6 xifdigu ugu wanaagsan yahay weeyaan marka inta aan ka faa'iideysano waxa weeye ilmaha annaga xil laga saaran yahay waalidka xil ka saaran yahay laakiin waxa weeyaan wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradaha kale xil ka saaran ka waalid ka saaran ka muhiimsan marka ilmaha ha loo fikiro ha loo turo waxaan doonaynaa waxa jiil wanaagsan oo dalka iyo dadka iyo diinta anfaca ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu nasiyo wabillahi tawfiiq